waaxda tayadhowrka badeecadaha Puntland ee wasaaradda ganacsiga ayaa maanta waxay shahaadooyin guddoonsiisay qaybtii labaad ee warshadaha sifeeya biyaha macaan ee ku yaala magaalada Boosaaso kadib markii ay buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa ee lagu xaqiijinayay tayada biyaha ay sifeeyaan. kulanka oo lagu qabtay xarunta wasaaradda ganacsiga ee magaalada Boosaaso waxaa ka qayb galay maamulka gobolka kan degmada guddiga tayadhowrka Puntland iyo mas'uuliyiin ka socday warshadaha shahaadooyinka la guddoonsiiyay. ugu horeyntii agaasimaha waaxda tayadhowrka badeecadaha Puntland ahna guddoomiyaha guddiga tayadhowrka Salaad Aadan Maxamuud ayaa sheegay inay wali wadaan baaris la xiriirta sidii loo ogaan lahaa tayada warshadaha kale ee biyaha sifeeya ee ku yaala Boosaaso. waxaa maanta oo taariikhdu tahay 13 bishii 6 2018 aanu halkaan ku soo bandhigaynaa laba warshadood oo kala ah Arraxma Water iyo Aqua Safi kuwaas oo shuruudihii looga baahnaa buuxiyay. sidaas awgeed guddiga tayadhowrka badeecadaha Puntland oo kaashanaya laabka Puntland East Africa Standard ee caalamiga ah ayaa maantay shahaado sharaf aanu guddoonsiinaynaa biyaha labada warshadood ay soo saaraan ee kala ah Arraxma iyo Aqua Safi inay standardkii biyaha looga baahnaa buuxiyeen. waxaanu shacabka Puntland la wadaagaynaa in biyahaas labada warshadood ay yihiin kuwa caafimaad qaba oo lagu kalsoon yahay caafimaadkooda. Muxyidiin Maxamed oo ka socday warshadda biyaha sifeeysa ee Aqua Safi iyo Cabdirasaaq Cabdulle oo isna ka socday warshadda Arraxma oo iyana biyaha sifeeysa isla markaasina labada warshadood ee maanta la guddoonsiiyay shahaadooyinka ayaa ka hadlay kulanka. wax systemka la isticmaalo warshada ahaan ee Soomaaliya marka la fiiriyo waa isku mid weey. shirkad isticmaasha chemical ma jirto. shirkad walba waxay isticmaashaa machine waa same machine. shirkadda laga joogsa Arraxma iyo shirkadaha kale oo naga maqanba isku machine isticmaalna. quality ahaan marka waxaan dhigi karnaa qof walba dadaalku uu sameeyo ku xirnaanaysa. marka quality ahaan shirkadu isku mid yihiin baan rajeynayaa. waxaanu nahay warshad aqoon u leh biyaha erooga sifaynta iyo bini'aadamku cabi karo. waxaanu nahay injineero cadaana iyo kuwa ajnabiya oo takhasus leh iyo kuwa local ah oo aniga hadda hadlayo aan ka mid ahay oo ka shaqeyn jiray oo ku hawlanaantay waagaas. waxaanu ku faraxsanahay in aanu biyaha yaga la baaro. gudoomiye ku-xigeenka degmada Boosaaso Siciid Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka ayaa iyaguna goobjoog ahaa kulanka waxayna madasha ka sheegeen kuwa kanuna waa la mid. marka mas'uuliyad culus baad qaadeen hadii Ilaahay hortiisna waa la kula xisaabtamaya in aad xil iska sii saartaan in qoladiina laabka iyo kulli waa dadaalaysaan laakiin dadaalkeena si laba laabtaano waxa ayana hambalyo labaad iyo in biyaheeni wadanku maalin dhow ama haddaba ku kaaftoonay ama maalin dhow kaga kaaftoomi doono dibadda inoo ku yimaada oo iyaduna horumar kaleeto ah oo hadee waxaani inaynu isticmaalo oo si walba uga faa'iidno. Maxamed Madani, Universal TV, Boosaaso.